الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan halkan ku guda galaynaa insha Allah taala manduumo ku saabsan cilmiga tawxiidka ama aqeedada oo iska leeyahay al-Imam Abdullah ibn al-Imam Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath Abu Bakr as-Sijistani منظومة وحلو يقانا منظومة أبي داود منظومة ابن أبي داود الحائية اللي هذا حائية وحلو بحي بمعنى بيت كستوح وكل معنى يا حاء انتي صبدا صاص تردد بقى الحائية اللي هي منظومة عن أوي ورنتي علمدي أي يقانين إلى وقت إمامكو تحدى تريي إلى وحي كدن بيي عانا بيهيد ساستردد بالإمام الذهبي عليه رحمة الله وحوليه هذه القصيدة متواترة عن ناظمه قصيدة دني تواتر وحا لوغسو قوريي إمام كتحي ووحا كوريي ولبا أرددي سرقي قوة ويناء وكمدا مثلا الإمام الأجري أبو عبد الله بن بطة هي غير كودبا وحانا شرحي علماء دورة إلا هذا شرح الله وحاوه إن شرح أوليه هاي الإمام السفاريني ولو مجلد تقريبا كتاب أيوكو شرحي كان هذا عن هينا وحا اسكالي للمعاصرة يعني الدكتور عبد العزيز عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد ويسوينا التحفة السنية اللي هذا يسوينا وشرح كري علماء هرنا waa sharxeen laakiin sharaxoodi waa lama hayo waa maqayhay baa leeyahay imaamka kitaabka iskale ama manduumada iskale magaciisa waxa la yiraahdaa Abdullah ibn Abi Dawud abi Abu Dawud wa Sulaiman ibn Ash'ath oo ah imaamkii iskalaha kitaabka sunanka sunan Abi Dawud imaamkii iskalaha yaanka baa dhalay nin marka wuxuu ahaa raggii dhashay 230 markay taariikhda hijriga ahayd ayuu dhashay taqriiban waxa la dhihi karaa wuxuu soo gaaray aa'imadii waaweynaa dhamaantood soo gaaray Imam Ahmad waqtigiisii Imam al-Bukhari Muslim dhamaantood uu soo gaaray laana waqtiga kadib bay dhamaantood wada dhinteen waxa la leeyahay isagoo yar oo da'diisu iska yar tahay ayuu aabihii kala soo safray ama kala soo socdaalay meesha la yiraahdo Sajistan oo dhulkii ay ku dhasheen kadibna caalamul islaami buu ku wareegay isagoo aabihii la socdo da'diisuna yar tahay waxay mareen Khurasan Asbihan Baghdad Kufa Makkiya Madiina Sham iyo Masar inta aabihii buu la socday kadibna waxa uu socdaalkiisaas dheer uu ku ekeeyay oo uu degay meesha la yiraahdo Baghdad oo marka ahayd حاضرة المسلمين يعني المسلمين عاصمة وضعه وحال ليها يرانتيسي ننهي مسر لبوها وعلم قدوني ديسا وكل من تيسا نن آدي آدو قد دا البضن بوها حافظ متقن وآدي آدو عدش بدن لواءها علماء آد بيو أمانين رق بدن رنتي وحبوك قاتل علماء دي واوينت كمي مثلا علماء دي سوحا كمي آبيه أبو داود أحمد بن صالح اللي يجري علماء واوينات كمي محمد بن بشار وبخاري مسلم بشيخ وضعها عمرو بن عثمان الحمصي إسحاق الكوسج ويسوي بخاري مسلم شيخ وها عمرو بن علي الفلاس سيدو كله محمد بن يحيى الذهلي ومسلم بخاري بشيخ وها معناها الضبقة وحقليا بخاري ومسلم بي اسكو شيوخ أهاي أو اسكو يعني وحوي علماء وحكا قاتل معنا تقريبا أرض بدن ورجع عنك أهاي علمي حديثك أقونتي سكو عن بحينا أرددي سيبي أهاي ووحى أرددي سكمل مثلا الإمام ابن حبان كتابك صحيح أسكره أبو الحسن الدارقطني إمام العلل أبو حفص بن الشاهين نكال إلهه يا أبو أحمد الحاكم ابن بطة رجع صودا أيا كم إذا ها أرددي سي لما هو الرج يعني اللي يقانه ومجال في علمي حديثك الله ويقانه
ibn abi daawud aad baa loo ammaanay oo culimadii waqtigiisa joogtay raggii ka dambeeyeyba aad baa loo ammaanay ilaa ay ragga qaarkii aabihii kala mid dhigeen bal qaarkood waxay yidhaahdeen xagga aqoonta xadiiska aabihii isaga kaga koreeyay bay dhahan marka nin aad iyo aad runtii u cajab badan buu ahaa caqiidadiisu waxay ahayd caqiidada salafka saddexdii qarni saxaabadii wixii ka dambeeyay wixii caqiido u ahaa waa caqiidadiisu ahayd caqiidadiisii qayb ka mida ayuuna yani tixdan yarta ah ayuu ku sheegay xagga madhabka fiqigana waxaa la yidhahdaa wuxuu ahaa xambali madhabka xanaabilada aabihii baa xambali ahaa oo imaam axmed buu arday u ahaa aabihii isaguna markuu aabihii dhintay waxaa la yidhahdaa baqdaad xanaabilada imaamkoodu ahaa oo ninka loo noqdo ayuu ahaa xadiiska iyo fiqiga labadaba oo aabihii buu ka dhaxlay mansibka isagaa macna ayib tasaaniif fara badanna wuu leeyahay kutub badan oo caana buu leeyahay oo uu ka mid yahay kitaabkani waxaa ka mid a maalan kitab la yidhahdo الsunan والbacث ama الsunan iyo kitaab bacث المصاxف kitaab la yidhaahdo الnasikh والmansukh kutub badan buu leeyahay wuxuu dhintay bishii dilxija sanadku markuu ahaa 6 iyo 300 taqriiban 316 markay taariikhda hijriga ahayd da'diisuna markaa waxay ahayd 87 jir buu ahaa taqriiban mucamar buu ahaa ilahi subxana wa ta'ala cumri dheer buu siiyey wuxuu yeeluu ka tegey marka waxaa ka mid a aahaarta uu ka tegey caqiidadana marka ka mid a manduumada waa tix yaroo gaaban oo iyadoo dhanba 33 bayd ah laakiin runtii maadada uu ku sheegay iyo macaanida ay tixdaasi uruurisay waa macaani waaweyn masaa'il waaweyn buu runtii ku taabtay ayib waxaa fiican marka in runtii ruuxa daalibulcilmiga ah maadaama ay iska fududahay hadda tanoo kale ayna waqti dheer ku qaadanayn inuu xifdiyaa fiican laanna sideedaba culumta haddaad doonayso inaad yani wuxuun asaasiyaada yeelato waxaa loo baahan yahay inaad yeelato wuxuun ka xifdido khaasatan mukhtasaraadka kuwa gaagaaban waata la yidhahdo macnaa waxa weye man xafida almutuun xaaza alfunuun baa la dhahaa ninkii matniyada xifdiya funuuntuu koobaa faniyada kala duwan ayuu koobaa marka waxaa fiican fanni kasta inaad manduumo ama matni gaaban aad ka xifdisantah markaasi waxa weeye ruuxaas waxaa la dhihi karaa basically waa dhisan yahay asaas ahaan macnaha culumtii waa u dhisan yahay macnaha marka iska fududahay in la xifdiyaa fiican marka manduumadii marka waata wuxuu ku bilaabay imaamku wuxuu yihi tamassak bixabli illahi wattabici alhudaa walaa taku bidciyan lacalaka tuflixu wadin bikitaabi illahi wasunani alatii atat can rasuuli illahi tanjuu watarbaxu tamassak qabso buu yidhi bixabli illaahi xadhigga ilaahay qabso wattabic waxaadna raacdaa alhudaa hanuunkana raac walaa taku hana ahaanin oo ha noqonin bidciyan mid bidca loo aaneeyey lacallaka waxaad mudan tahay tuflixu inaad liibaantee ama lacallaka tuflixu si aad u liibaanto wadin waxaad ka diin dhigataa bikitaabi illaahi kitaabka ilaahay ka diin dhigo waasunani iyo axaadiistii allatii axaadiistaasoo atad timid can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa ka timid tanjuu waad badbaadi haddaad saa yeesho shar oo dhan baad ka badbaadaysaa wa tarbaxu waadna faa'iidaysaa labada bayd imaamku wuxuu kaga hadlay mas'alo muhim ah waana masalada loo yaqaano masdaru talaqi xaggee baa diinta laga qaataa way masdarka wax laga qaato oo hadday cibaado tahay iyo hadday caqiido tahay iyo hadday akhlaaq tahay xaggee laga qaataayoo loogu laabtaa xaggee asal u ah wuxuu leeyahay marka cinda ahlisunna waljamaaca masdarka meesha wax laga qaato waa kitaabka iyo sunnada nebiga sal lla alay slam labadaasaa asal ah iyagaa wixii yani wax weeyaan miisaan u ah waxalla waxaad caqiidaynayso iyo cibaadadaada iyo suluukiyaadkaaga dhammaan ayagaa miisaan u ah waxay iyagu saxaanna waa saxsan yahay waxay iyagu khaldaan oo khalad way dhahaanna waa khaldan yahay mas'aladaa way masaladu kaga hadlay labadaa bayd wuxuuna ka wadaa xadhigga ilaahay qabso xadhiggaasi waa qur-aanka wactasimuu bixabli illahi jamiican waa ka qur-aanka ilahi ku yuri subxana wa tacaala xadhigga ilaahay qabso hanuunkana raac hanuunkaa wuxuu ka wadaa sunnadii nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh hanuunka
لما قيب والله قيبيا إنك ابن القيم عليه رحمة الله كتاب كيسا شفاء العليل كأو قيبيا إلى لما وحكا بدن أو قيبيا هذا نص تقسيم كغالب كلا يقانو هنون كله أو قيب سما أما هداية الله أو قيب سمتا هداية وحل إلى هذا هداية التوفيق والإلهام ووافقشن يكو إلهام إن الله سبحانه وتعالى شيء قلبي يقليه كدبنا راعدي سيقال الشدي سكوافج تاو حل هذا هداية التوفيق ولا لا إلهي أمبا بحيه سبحانه وتعالى عد كلا يتوقع لقيه لكرم جرت عد كلا يعني بحين كرتنا ما جرت وانا مدى النبي قال نقول صلوات ربي والسلام عليه إنك لا تهدي من أحببت عدة دونت مهر ونكرت بمعنى ما وافجين كرتد واحد كمنا إلهامين كرتد قيبت اللباد هداية وحويان وهداية البيان والدلالة والإرشاد بلنا وعبين يتصدوا هذه الشيء اللي قتصور وعبين بمعنى والله هنوني أما قاضى أم هقاضني ونوع اللباد هداية واحد وأنا مد الله سبحانه وتعالى وكل شيء وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ريث ثمود وحلقوا بينه بالله سبحانه وتعالى هديناهم بمعنى وانوع بينه طريقي وانوع بينه فاستحبوا العمى إن الآن بيتشعلادين ويهنون كي كدورتهم معنا مركا ومدى يدنا النبي قال له صلوات ربي وسلام عليه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم شيء توصل بعدتك كوهنون ليس أيدي هو روحيتي عدة تعيشها مهنون كرت تانينا waxay leedahay dadka jid toosan baad ku hanuuninaysaa Nabi Maxamed marka hanuunin loo sugayo waa mid cadeynta iyo tusida dadka inuu jidka tuso taa uu heli kara Nabi sallallahu alayhi wasallam isaga ayaa sameyn kara dadka culimada sameyn kara ducaada sameyn kara cid kasta wax garanaysa waxay cadeyn kartaa laakiin mid loo diiday oo leeyahay gacantaada kuma jirto mana sameyn kartid waa hidaayatu tawfiiq oo waafajinta way macna marka wuxuu ku leeyahay wattabi'il huda hanuunka raac hanuunku marka halka wuxuu ka wadaa سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه معي الرسول صلى الله عليه وسلم قرنيسا خطبه كستا هذا الكستمركو فرفرنا يا عبد الله بي واكيد يجري اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم marka yani waxa weey kalaam waxa ugu khayr badan kitaabka Ilaahay wuxuu qadameysay wa khayr الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي wuxuu marka waa xadiistiisii ودقنك النبي كتب صلوات ربي السلام عليه كتابك يا مركه هديغا هدي لسدوادي بمعنى هديغا وحو هذا كودا معنى سنه النبي صلى الله عليه وسلم لبدا قبسو لبدا كدغ لبدا هداد كدغتو waxaad ka badbaadaysaa inaad bidca ku dhacdo saas daraadeed wuxuu ku dawadhigay inuu ku yiraahdo wala taku bidciyan bidci gooma noqonaysa waa markaad ka tagto kitaabkii iyo sunnadii aad ka tagto la taku bidciyan bitarki alkitab wa sunnah kitaabka iyo sunnada hadaad ka tagto ka leexato markaasi waxa weeyaan bidcad ku dhacaysa mid bidca loo aanay marka noqonaysa macna hadaad kitaabka iyo sunnada qabsato bidcadana aad iska ilaaliso la'allaka tuflihu wal libani bacna waxa way khayr adun iyo mid aakhira ayaad helaysa waana rabbi subhanahu wa ta'ala quraanka ku sheegay falladina aamanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaa'ika humul muflihun kuwa quraanka raacay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ala jidkii samaray kuwaasi waa kuwa liibaanay marka la'allaka tuflihu bimaana kitaabka iyo sunnada raacidooda ayaa waxay tahay dariiqul falah liibaanta jidkeedu waa jidkaawa jidka hadii uu ruuxu garan marana dariiqiisu waa dariiq khasaaro shaki male saas macna marka taawiya meelaha Allah subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay macnahaas مثلا نبي الله آدم عليه السلام markii intuu shaytaan ka faa'iideystay jannada laga soo saaray oo dhulka loo soo diray wa ka rabbi kuuri subhanahu wa ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa hadii hanuun xaggayga ka yimid idin soo gaaro idin yimaado ruuxii hanuunka iga raaca lumi maayo adduunka intuu joogo aakharana ku ayaan daraan maayo naar gelib maayo سافر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحيل هذا تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة إلهي وحو أكفال قال أدمان قاضي روحي القرآن كإنتو أخريك وعمل فلا الدون كان إنو صلوا من آخرين إنو سنار قلين
تاسو إلهي قدمان قال سبحانه وتعالى مركا لعلك تفلحوا سيادو الليبان توا الليبان هذه مربطة جدك يدوكا حدي هذا الليبان ربنا جدك وكلحن هذا الليبان ربنا جدك قادوا معنا بيت كان ضمب بيت كهر معنيه سأم كسي أتكينيا والدين بكتاب الله والسنن التي واحد كدين بقتاء عقيدة ساء رعبا كتابك إلهي أحاديثتي رسولك حقي سكتمت أتت عن رسول الله معناها لقى موضة وحكستو رسولك حقي سكسو أروري لقى موضة وحا لقى موضة وحي رسولك كسو أروري هذا نصغن شرط وحاد شراء أحاديث فربضان وعن رسولك كسو قلين وعلى الشيء قاركود وابين أبورد قاركود يعني وحوي الله بينه كسويهن وأحاديث ضعيفة يا موضوعة يوحي كسي خوسية كوا سامرك وحوي اللي غير صاريو أتت عن رسول الله بمعنى وحا لقى وضع أحاديث تكسبنات النبي صلى الله عليه وسلم هو أما الصحيحة أما حسنة يعني وحوي درجة الاحتجاج أنك بحصني مسألة مركب هل كان نوع قلتي أو لماذا بين أوجود ترجلي مصدرك وكتابك هي السنة سيداس درادة أهل السنة meesha ay wax ka qaataan waa labadaas maxaa ahlu sunna loo yiri lianahum yattabi'una sunnada raacan wal jamaa maxaa loo yiri lianahum yajtami'una ala ittiba'i sunnah waxay ku kulmaan oo isku raacaan raacida sunnada isku khilaafaan ahlu hadith la walda maxaa loo yiri lianahum yattabi'una al hadith saas macna taana waa la yiraahdaa waxa kale la yiraahdaa ahlu al athar la walda ahlu al athar waxa laga wadaa bimacna waxay raacaan wixii la soo guuriyay waxa la soo guuriyay kitaabka quraanka iyo ahadiista ayaa afarka laga wadaa taasay raacaan marka kulli waxay ka turjumayaan bimacna hal waa magacyo fara badan oo hal koox ah oo wada magac ah hada ahlu hadith hada ahlu athar hada tirahdo ahlu sunna wal jamaa hada tirahdo as-salafiyun hada tirahdo لأنه هو نسبة إلى السلف صحابة التابعين تدك الرعسن أيها اللي ده معنا كل ما يسكن معنا أي إيمان يسمع معنا طيب طريقة مركا أيوه أي مرين هذا يحب لي شريا مثلا وحي تقريرنا يعني عقيده مسألة عقيدة وتقريرنا يعني وحي كل هذا المسألة هو الصراع إيه الصراع محاء الدليل مركا اللي هذا عقلي ما آذان ما الكلام وحكى مرة ديان مركب وإلي أو آيات صوت فتان أو حديث نبي كسر صوت فتان لكن رأي هو البايري يوحلون بدأي هاي كم ورجستان هل كذا وحكوس عليه كتاب إلهي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أستامها أي كوكر الجدسين من أهل السنة هي أهل الفرقة كوحها الممي يشيتك كالممي يضدك تشيتك هي أهل السنة أستامها أي كوكر الجدسين علاموينك أي كوكر الجدسين علامة أمم سنة أساسي جوا أهل السنة مصدر كودا أي وحقاقاتان مصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة أهل الأهواء أهل البدعنا مصدر التلقي مصدر كأي وحقاقاتان إيجا كتابك والسنة كلية ما وحيالك لا أدر أقول مثلا وحيكون ليان مصدر التلقي العقل وسيد المعتزلة إيو جهمية إيو يعني أشاعرة في بعض الأسماء يعني في بعض الأبواب إيو يعني أصل وحوى عقلي قاوة ساس درادة هدي عقلي قوضو وشي كتسو آيات قرآننا أي سيدي عقلي قوضو كتسي كهر تماد أما حديث صحيحي وكهري ماد سيدي عقلي قوضو كتسي وحيليهن يعني القطعيات العقلية مقدمة على النقليات بنيه عقليات كقوان شكي قلي كرين ولغا وحي النقل بؤو كتصي وآيات قرآن أما حديث كتصي وحافرية القطعيات العقلية وحيكم مقعبة القطعيات العقلية مثال هذا سوق هذا مثلا قرآن كي السنة وحي الشيغان إلهي الصفات بيقو الشيغان صفات كي وإنكران قل يهني صفات كي محاضر إنكرتين بالعيري صفات كي وحانو إنكرنين يدهن عقل وحو كتصي صفات كان سجدوا بإله الله سجاي وحي كنيسة نقص يدمنا بإله كنيسة سيداس درادة كتابك يسنده هذا الشيء لكن عقل جيبه ديدي هذه كتابك يسنده عقل إسكهري مادنا العقل مقدم عقل الله مرنا هل كاس إلا مرين مرك أصل كأبوه الرئي لبوك لتجي بهرت كاسوي
asalka ugu horeeya lagu kala tagayo ka isaga way inda al-sunnah wal jamaa masdar talaqi wa kitab iyo sunnah inda al-firaq ad-dalla masdar talaqi waxa weeyaan ya imma aqli inuu yahay ya imma inuu waxyaalo kale u noqdo saas macna yani waxa weeyaan saas daradeed mu'tazilada iyo madaarista raacday dawaa'ifta raacday mu'taziladu waxay dhashay nimanka la yiraahdo kullaabiyada iyo ashaa'irada iyo maturidiyada iyo mu'tazilada dhashay mu'tazilada ka faraaman mu'taziladii fikradeedu waa soo socotay al-madrasa al-aqlaniyya oo hadda cusub oo rag badan oo khariijiina leh مثلا ninkii la jiray maxamed cabdi ninkii masriga ahaa iyo Jamaluddin al-Afghani iyo Muhammad al-Ghazali macnaha mar dhow dhiman jiray iyo ninka la yiraahdo Turabi iyo madrasa al-aqlaniyya ka soo jeedaan ay nasadu sunnah kitab sunnah hadith ba sheegay عندهم العقل المقدس عقلك ka horeey عقلك haduu diido خلاص la tag adoo hadiiska meesha gal aad garanay marka مسألة العقل سيده دورك iyo kaalinta uu aqligu leeyahay markii nas meesha uu yaalo aqligu doorkiisa iyo kaalintiisu waa inuu ilaahay hadalkiisa fahmo hadalka rasuulkana fahmo laakiin ma uu laha door iyo kaalin uu kaga hortagi karo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam taas macna doorku waa inuu fahmo oo garto ilaahay wuxuu u jeedaa rasuulkiisu wuxuu u jeedaa salaatu rabbi sallallahu alayhi markuu garto kadibna waa inuu jirka u gudbiyo jirka iyo xubnuhu ay fuliyaan لكن دور عارضه كهرتغو ماله صاص معنا لان عقل اللي اسكو فقسيه ما جربه معقولات اللي اسكو فقسيه ما جرب العقل يتفاوت عقل هو كلا دويه ادي عقل هي عقل اللي اسكو اركنا لا روح بني ادم وعقليات كودي معقولات كودي اسكو ميدين ما جرب عقليان انو قولينا marka kaba miisaan marka waa khuraafaad way sidaas daraadeed ba firqan lumay ee kitaabka iyo sunnada ka lumay qaar kood waxay ku sheegeen inuu yahay al-qat'iyat al-aqliyah wax go'an oo aqliga ku tusay oo hada laga keeni karin qolaa waxay ku sheegeen iyaga kamid ah inuu baadil yahay wax ka jiro oo aqligu uu ku tusay cagsa dalik aqligu bil aadam adu xageeda la aadi mid meel buu socda wax kala socdo marka al-kitab wa sunnah saas daradeed ba sheekhu islaam ibn taymiyyah alayhi rahmatullah kitabkiisan yani dar'u ta'arud al-aqli wal-naqli wa kitab weyn masaladaas ku alif sideedaba inaysan aqliga fayow iyo naska sugan inaysan wax tacaarud iyo iska horimaad ka dhaxaynin haddaad aragto ama aqli iyo nas iska horimaanayo daahirkooda aad isleedahay waa iska horimaanayo is hardinayaan ama aqligaas aan fayoobeen ama naskan sugnayn labada mid waa laakiin aqli fayow oo dariiq sax haya iyo nas sugan oo ama aayad ama xadiis sugan ah marna iska hor yimaadaan kitaabkaas uu ka alifay مسألة سنة ألفية تقريبا وإنت سو مجلد واحد ساس مع قليها سكور الدنيا فلاسفة يقوليان فكرة داوت قليها كلا واحد قبان مثلا مصدر كتلقي لقى قاطع عقيدة إيو دين تلقى قاطعي واحد قبان ورياضة رياضة غاربة وحوي يعني وحويان الرؤية فواحد يستعمل مصدر التلقي واحد كله مثلا أنت ما طريقين كالصوفية ده طريقين كالصوفية ده الرؤية عندهم ومصدر الحجيستوى arkaysa مثلا wadaad baa riyooday muxuu ku riyooday saas ku riyooday wadaadka riyadiisi waxa loo qaadanaa si aad quraan iyo xadiis oo kale loo qaadanay wala xujaysanay masdar aan kitaabkii iyo sunnada ahayn bay marka wax ka qaadanayaan wax ku jideynayaan aqaayid lagu jiday cibaadad lagu jideynaya sheekhay baa ku riyooday baa leeyahay waxa kamid ah مثلا qaarkood wax wujdaanka la yiraahdo mukashafaadka al-mukashafat waxba la ii fayday buu leeyahay waxba la ii fayday yani waxa weeyaan xijaabkii carshiga ka sokayay baa la ii fayday aniga carshigan daalacday ku leeyahay sidaas daradeed kashfigaas ay qaar fara badan xujaystaano meeshii kitaab iyo sunna ay wax ku salayn lahaayeen halkaas ay miisaan ka dhigan marka masdaru talaqi baa lagu kala tagay qaarkood waxay ku leeyihiin hadathani qalbi an rabbi qalbigayga ii warramay oo rabbiga iiga warramay maxaa tahay adiga qalbigaagu markuu rabbiga kaaga warramay yaa idin dhaxay بمعنى وحو كدغيا isagii alla inaan loo dhaxaynin oo malakul jibriil iyo nabi maxamed iyo ayna u dhaxaynin oo toos buu ilaahay uga qaataaba sharciga wa mid ilahan antum ta'khuduna dinakum 'an al-amwat wa nahnu na'khudhu dinana 'an al-hayy alladhi la yamut idinku sidii hadad caamadi tihiin dadka kala caamay u yaqaanaan diintiina waxaad ka qaadataan dad dhintay baad ka qaadataan
يعني علماء iyo saxaabadii iyo nabi maxamed iyo waa dhinteen kuwa dhintay baad idinku diinta ka qaadata annagu se waxaan ka qaadanaa diintanada allaha nool ee aan dhimanin oo si aad uga qaadataan xadathani qalbi can rabbi wa qalbigayga ii warramay oo rabbiga iiga warramay waxaanay mukaashafaat ka yiraahdaa cilmi mukaashafaat ama cilmi baatil wax saas oo kale dhahan kullu dalika qoliyahaas oo dhan buu imaamku radinaya markuu ku leeyahay tamassak bihablillahi wattabi'il huda meel kale wax laga qaato ma jirto meel kale wax laga qaato ma jirto wala riyan wax lagu salaynin wala wajdi iyo mukaashafaat iyo waxba la ii fayday waxba la tusay wax lagu salaynin oo masdar wax laga qaadanin wala aqli ba wax laga qaadanin waxa wax laga qaatay oo nolosha laga qaatay cibaado laga qaatay oo aqeedo laga qaatay waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam dariiqaas ay ku kala baxeen markii ugu horeysayba oo lagu kala bayray ahlu sunna iyo firqo ku kala bayray wixii inta ka soo haray masaa'il isku khilaafsan yihiin ahlu sunnaha iyo firqa kale isku khilaafsan yihiin mas'aladaas ay farac ka yihiin kulli abwaabta oo dhan ahlu sunnaha waxay taagan yihiin war aayad iyo xadiis baa yaalaha gudbina ayaguna aayad iyo xadiis inta ka tilaabsanaa bay waxyaalo kale ka caayeen meel kale wax ka raadinayaan macna saas weey tamassak marka qabsado ku yiri bihablillah xariga ilaahay qabso wa quraanka wattabi' waxaad la raacdaa alhuda hanuunka raac wa sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam wala takuhana ahanin bid'iyan mid bid'a loo aanay sabab bid'i kun oo gartaa inaad ka tagto kitaabka iyo sunnadii ka tagto marka la shakka inaad bid'i noqonayso la shakka inaad bid'i noqonayso macna saas weey wala takuha ahanin bid'iyan mid bid'a loo aanay ha noqonin ahlu bid'a dalalkooda intooda badan wuxuu ka iimaanaya ka tegitaanka kitaabka iyo sunnada ay ka tagaan la'allaka tuflihu si adu liibanto hada liiban rabto waa liibanta yani waxaad rabtay adduunka iyo aakhirada inaad liibanto hadaad rabto saas macna wadin ka diin dhigo oo intaad i'tiqaadisa hadan raac way bi kitaabillahi kitaabka ilaahay ka diin dhigo was-sunani ahadiistina ka diin dhigo allati ahadiistaas oo atattimid عن رسول الله رسولك إلى حقي سكتم صلى الله عليه وسلم أيضا الصغل نبي كسو عروت هذا سايشو تنجو واد بدبادي وتربح والنفائدي تنجو من ماذا مفعولك بحذفي وحتكبد باديسا من كل شر وبلاء أدونك انت تشوكتنا فتنوينك إيا بدعة إيا خرافوينك واتكبد باديسا وأنا بدقلي آخرنا عذاب إلهي واتكبد باديسا عقابتيس ولما بدبادك كليا ماذا وتربح وتفائديو واحد فائديسا هنون الدنيا ده يتشلى إلهي يرضيه سوء آخر صح مركز وفائدة خسارة الآن فائدة خسارة الآن أيات كلها ليس كتاب إلهي السنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى راعده وتنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلاس يعني وحوي قبصده لبلاس كل ماشي يبقى وريجان وإناد وريكتو ماشي كل بقود ديرانا وإناد مرتو وحي يجي خلاف سنة وإناد معناه كله حتى بمعنى ساسو إلى شيء طيب وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح مركو إلى شيء كتابك قرآنك هي السنة النبي أحاديث تسئليهين لبدا مصدر وحكا قادنه هذا المسلمين تنه آل سنة مركو مبدأ إنه تقريري بوحو قدقلي أحكام قرآنك قرآنك وحي كسافس قرآنك محوية هاي ماشا أسأل سويديني قرآنك محوية مركا مسألة مركا مسائش أقوى وين نسكو خلافين وأهل السنة غير كتكو كلا تجين بيكمت بذلك كاس وإن الله أبورين هذا الله أيا دانا أي اعتقاديون الدين كنكتين الأتقياء رجي إلهي كبقشري تذكي الله كعبسن شري ساسي الدين كنكتين وأفصحوا وين العديين كتب توريكو عديين قلم كوريكو عديين عرب كوريكو عديين ولا تكوها نقلن في القرآن كبحديثة قائلا مدها بالوقف استاجد مدها يوقبها النقل بالوقف استاجد الوقف قرآن كهكا قبل أنا بهم كما قال سيدي لهذين وكالي أتباع كورع صنيال أو لجهم أسقنا أو أسجحوا أي ولبا أي نفتوض أتشل أي أوشين معنا
asjaxuu bimacnaa laanat bihi anfusum waay naftoodu ay u jilcdo u dabacdayo ay naftoodu qaadatay walaa taqul ha odhanin alqur'aanu qur'aankii khalqun abuur weeye mid la abuuray weeye qiraa'atuhu ay qiraa'atuhu akhrintiisu aan akhrinayaay mid la abuuray weye hadhihin maxaa yeeley fa ina kalaam allah ilaahay hadalkiisa yuudaxu waa la caddeeyaa bilafdi ku hadida lagu caddeeyaa lafdiga ayaa lagu caddeeyaa saas wey macana halkan wuxuu ka galay sifo ka mida ilahay sifooyinkiisa subxana wa tacaala ilahay tilmaamuu leeyahy tilmaamaha qur-aankaa sheegay axaadiista nabigaa sheegtay sal lay slam tilmaamaha ilaahay subxaana wa tacala way fara badan yihiin laakiin tilmaan ka mida weeye sifatu lkalaam ilahay tilmaamihiisa tilmaamo wuxuu leeyahay maalan nolol maqal arag cilmi yani kalaam hadal sifaatu daat buu leeyahayo gacan weji faro siduu alla sheegtay subxana wa tacaala sifaadka qur-aanka iyo sunnada ku soo arooray rabbi sheegay subxaana wa tacaala ee soo arooray nas saxiixa ku yimid ahlu sunna waljamaaca madhabkoodu waxa weeyaan sida saxaabada iyo atbaabiciintiiyo kulli la kala dhaxlay haddana aan soo sheegaynay in sidaa qur-aanka iyo sunnadu u sheegeen la rumeeyo intaa qur-aanka iyo sunnadu sheegeenna lagu gaabsado ilaahayna sifooyinkiisa la sugo qaabka ay u yaallaan iyo siday u yaallaanna aan la raadinin ee laga gaabsado si ilaahay u qalantana loo sugo sifo kastoo ilaahay subxana wa tacaala uu sheegto caqligana aan loo bandhigin oo la dhihin caqligaa diidan iyo caqligaa ogol midna inaan la dhihin leanna baab caqli geli kara maba ahaba leanna waxaa la yidhaahdaa asifaatu tabacun lidaat sifadu waxay raacsan tahay daatada ay sifada u tahay maadaama daatadii aan waxba laga garan karin oo laga hadli karin sifadiina daataday raacsantaha waa in sifadana siday usoo aroorto in lagu rumeeyo duuduub kulli qwa duuduubkeeda waa inaad ku rumayso haddaadse tidhaahdo caqli baan gelinayayo tani ma habboona tanina waa habboon tahay tani uma qalanto tanina waa u qalantaa maya jooji caqliga ha gelin meesha ma geli karayo ahlusunna waljamaca marka waxa wey sifaadkaa sidooday u sugayaan saasay kala dhaxleen rasuulkay ka dhaxleen saxaabada yaa laga dhaxlay taabiciintii baa ka dhaxlay saasaa loo kala dhaxlay sifada marka sifatu lkalaam waxay ka mid tahay ilaahay subxana wa tacala sifa wuxuu leeyahay sifatu lkalaam oo macnaha waxa wey alla waa hadlaa subxana wa tacaala alla waa hadlaa sifatu lkalaam buu leeyahy tilmaantaasuu leeyahy kalaamka alla subxaana wa tacaalana waa xarfo iyo sawd la maqlayo wa sida ahlusunna waljamaca ay qabaan xarfo iyo sawd la maqlayo wa markuu ilaahay hadlayana kalaamkiisa iyo hadalkiisu hadalka makhluuqiisa ma shabaho uma eka limaada lianna maadama daatada ilaahay aynan makhluuqatiisa u ekayn sifaadkiisoo hadalku ka mid yahayna ta makhluuqa uma eka saas maana ta makhluuqa uma eka laakiin hadal xaqiiqiya buu rabbi leeyahy subxana wa tacala hadal xaqiiqiya buu leeyahay oo la maqlayo oo macnaha waxa wey maaragtay xuruuf leh oo macaani leh buu rabbi leeyahay subxana wa tacala ayib taa markaynu sugno ayaa waxaan usoo gudbaynaa qur-aankan aynu hayneen laleeyahay raaca waxa uu ina yidhi waa hadalkii ilaahay qur-aanku waa hadal ilaahay sifo ilaahay oo guud ayuu qur-aanku ka mid yahay sifatu lkalaam buu qur-aanku hoos tegayaa maxaa yeelay qur-aankan aynu akhriyayno waa hadalkii rabbigan subxana wa tacaala rabbi baa ku hadlay jibriil baa ka soo qaaday nebi maxamed buu soo gaarsiiyey nebi maxamedna salawatu rabbi wasalaamu caleyh ummadduu soo gaarsiiyey macnaha kelimaadka iyo xuruufta labadaba ilahay baa iska leh nebi maxamed waxba kuma leh jibriilna waxba kuma leh xarfaha iyo macaanida isa saaran sida ay yihiin bay rabbi uga soo fuleen jibriil u soo xambaaray nebi maxamed qalbigiisa ugu soo riday nebi maxamedna sideeda iyadoo abuu ummadda u gudbiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh cid wax ku leh ama wax ku darsatay ma ay jirto ayib hadday ilaahay sifadiisa u yahay marka oo rabbi subxaana wa tacaala qur-aankani sifadiisii kalaamka ahayd iyo tilmaantiisii hadalkiisii u yahay ma makhluuq baa mise makhluuq maaha makhluuq ma aha wey leanna waa sifo ilaahay
tilmaan rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala makhluuq ma noqon karayo makhluuqu waa wuxuu alla sameeyey waa wuxuu alla abuuray oo ka baxsan laakiin sifaadkiisa tilmaanta isagu uu leeyahay makhluuq ma makhluuqna ma noqon karayso alla subxaanahu wa tacaala maqalkiisu makhluuq ma noloshiisa iyo xayaatadiisu makhluuq ma cilmigiisu makhluuq ma soo ma jeed yani waxa weeyaan maalan araggiisu makhluuq ma kadalika rabbi subxaanahu wa tacaala yani kalaamkiisuna makhluuq ma kalaamkiisuna makhluuq ma waa sifo uu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala waa tilmaan uu leeyahay oo lagu tilmaamo waxaa la leeyahay lahu lkalaam walahu alsamcu walahu albasaru walahu alcilmu saas magacyadiisuna waa caliim samiic basiir baa la leeyahay tilmaan rabbi wey subxana wa tacala marka tilmaantiisu ma noqoto makhluuq ma noqoto mana dhici karayso sidaas daraaddeed ba alla subxaana wa tacaala qur-aanka wuu isu tiiriyey isagaa isu aaneeyey alla subxaana wa tacaala isagaa isu aaneeyey aanaynta isu aaneeyeyna waa inay sifo uu qur-aanku yahay saas maana wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah hadalka ilaahay uu maqlo gaalkii raba inuu qur-aanka dhegaysto nabadgelyo siiyaa la yidhi ilaa uu kalaamka ilaahay maqlo kalaam allah baa la yidhi wa kallama allahu muusa takliiman baa la yidhi allah la hadlay muuse la hadliddaasi waxay adkaynaysaa hadalka lala hadlayo muuse inuu yahay hadal xaqiiqi ah takliiman waa masdar muakida la yidhaha yani hadal xaqiiqi ilahi muuse la hadlay subxana wa tacala qur-aanku marka waa kalaamu llahi tabaaraka wa tacala yani minhu bada'a wa ilayhi yacuud ilahay buu ka soo bilowday isaguna u noqonaya rabbi subxana wa tacaala sidaa uu u yaalona alla subxaana wa tacaala ogeyn ayib mas'aladaasi marka waktigii saxaabada ridwaanullahi calayhim hadal kama oolin inuu qur-aanku yahay rabbi kalaamkiisa inuu yahay xilligii saxaabada layskuma khilaafo qarnigii koowaad masalada hadal kama imaanin qarnigii labaad marka la joogo ayaa ninkan la yidhahdo jahmu safwaan nin la yidhahdo ayaa wuxuu keenay waxa la yidhaahdo qur-aanku makhluuq weeye oo hadal ilaahay ma aha ilaahay baa abuuray buu keenay makhluuqaadkiisa uu abuuray buu ka mid yahay hadal ilaahay iyo sifo ilaahayna ma aha halkaasuu lakii warkaa markuu la yimid ay culimadu markaa joogeen culimadii sunnada taabiciintii qaar baa joogay atbaacu taabiciintii aimadii waaweynaa baa joogay mas'aladu markaasa hadalkeedu bilowday kutubtooda markaa geliyeen waa ka hadleen culimadii sunnadii salafku way ka hadleen markaasaa la bilaabay in la radiyo dadka qaba qur-aanku waa makhluuq fikrad markaa soo baxday be saas daraaddeed waktigii saxaabada arki maysid hal nin oo saxaabada ka mid oo laga soo guurinayo qur-aanku waa makhluuq iyo makhluuq ma aha midna kamaynan hadlin mushkilo dib laga keenay be ninka la yidhahdo jacd ibnu dirham iyo jahmu safwaan iyo nimankanaa keenay niman ibtilaysan bay ahaayeen balaayo oo dhanna ayagaaba keenayba fitanka yani imtixaanaadka muslimiinta ku dhacay iyo masaa-isha laysku khilaafay intooda badan nimankanaa keenay waxaa la yidhahdaa silsiladeeda asalkeeda waxay gashaa yahuud bay gashaa oo waxaa la yidhahdaa asalkeeda jacd ibnu dirham sajistani bu ah jacd ibnu dirham baa keenay dhaha jacdina nin wuxuu ka qaatay baa la yidhaahdaa yani la yidhahdo bayaan ibnu samcaan bayaan ibnu samcaanna wuxuu ka qaatay baa la yidhaahdaa nin la yidhaahdo taaluut oo labiid ibnu acsamkii yahuudiga ee nabiga sixray baa abti u ahaa taaluutkaas labiidkii yahuudiga ah ee nabiga sixray baa taaluutkaa abti u ahaa fikraddu marka asalkeedu waa fikra yahuudiya leanna yahuudda waxay rumaysnayd kalaamka ilaahay inuu makhluuq yahay fikraddii iyada ahayd baa kuwo islaamnimo sheeganayaa ku soo qancay markaasay muslimiinta kusoo dhex tuureen dad badan baa marka ku ibtiloobay ayaga labadoodaba waa la dilay jacdina waa la dilay madaxdii muslimiinta nin ka mida dilay oo culimadaa fatwooday in laga takhaluso jahmu safwaanna waa la dilay oo culimadaa fatwootay in la dilo madaxdii muslimiinta nin ka mida isagana ka takhalusay fitnadoodii iyo dhibkay ummadda u keenan daraaddeed nimankaasaa marka keenay markay keeneen baa marka laga hadlay culimadii sunnadoo dhan baa ka hadlay kutubtooday ku qoreen waxay yidhahdeen qur-aanku makhluuq ma aha mana noqon karo waa hadalka ilahi subxana wa tacala masaladaa masaladu marka inoo qarirayo wuxuu yidhi marka waqul hayru makhluuqin kalaamu malikina intaa wuxuu ina yidhi qur-aanka waxaad dhahdaa makhluuq ma aha ee waa hadalkii rabbigana soo ma ayib sidaasayna diin ka dhigteen dadkii ilaahay ka baqi jiray yuu ka wadaa alatqiyaada wuxuu ka wadaa saxaabadii iyo ardadoodii
يددكي صدح القرنين ولا علماء واوينا ساسي الدين كدكتين مسألة أي اسكو خلافين ما هن علماء السنة ساس درادت با إن إذا القرآن هو مخلوق وحي أستان أطهي أهل البدعة إن ترى القرآن هو هذا الكإلهي لو مخلوق ما أهنا وحي أستان أطهي أهل السنة ساس معنا أستان معنا وحوي لوك القانون الإمام أبو ابنك الإله اللالكائي وحو كسو قوري كتاب كيسا شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة وحو كسو قوري شنبقل أو علماء السنة كاملة أو علماء السلف كاملة شنبقل أو نين بو كسو قوري أو قبا كتغي إن القرآن كي هذا الكإله مخلوق نوصنهي marka jidkaasi iska cad hay weyga ninkii gar marsan waa nin kharibo waa nin macna wax way afkaarti jahmi iyo ku ta'athurey macna sidaas weeyaan marka sidaas weeyaan qolada marka garanay madhab rasuulullah wal jamaa waasas ya khilaafsan waxa khilaafsan dhowr qolo intii khilaafsanayd meeshan uu sheegay qolo waa qolo iska cadaysatay oo nimanka la yiraahdo jahmiyada iyo mu'tazilada oo waxay yiraahdeen quraanku hadal ilaahi ma aha waa makhluuq bay ku tageen wax kasta oo quraanku inuu hadal ilaahi ku tusayo oo quraan ama xadiis ama aayad quraanana way leexiyeen qaarna way inkireenba qolo halkaas ay mareen warkooda waa iska cadi qolo labaad waxay yiraahdeen annagu dhihi mayno quraanku waa makhluuq la dhihi mayno مخلوق ما أهنا به مينه وأنك استاجنا مسألة وحانو نحينا القرآن كلام الله بس قرآن هو هذا الكي إلهي مركي اتماد من مخلوق مثل مخلوق معه وأنك جاب سننا قال الله وحل إلى هذا الواقفة لذا وقال الله إليه ولا تكف القرآن بالوقف قائلا سمعت وأنا من وحواش يعني وحويان شكي جهمية وواقلي شكي جهمية وواقلي وأنا من وحكى العدين وهي إلى مركز قريان بالرمان حديني لو القرآن كمسألة ومسألة صواب حدي صح وأنا تهلا واحد بلانك يا لنا وابري سعب الله مقريه مسألة دي السوق على كينو وماشا سيتهلاي قرآنكم مخلوق مثل مخلوق ما كالعباية مسألة أنه كان قابس الله بليه ومحاول أن قابس الله سوينه الشكي إذن كتير ما حدون الشكي إذن كتير ما بهذان قرآنكم مخلوق ما وهذا الكيله سأسمع مركا واقفة لنا هذا ونقوى إليها الإمام أحمد عليه رحمة الله يعني وحل وحوية هاي يعني وحوية الواقفة الجهمية واقفة وجهمية عبيا نسوك قرين مربى هدو أروى القرآن مخلوق ما هدو له عبيوه وجهمي إسقرين يوه بل جهمية وكدر يربع علم الغرقون قبانه نينك جهمي وانك بنانك تاغين عبايستي له قرآن هو مخلوق وركي سوى استعد يا زوه لكن نينك إسقرين هيا إلى أنوغ مايا أنوغ ليه مايو طلع ليه مايو سنة واكا قاب صنعي وانه حين قبأ أو كتشير هذا إسقرين يوه صح؟ اللي حميدك عيائي ميدك كو أمس كدرا ميدك كو أمس هدرا هذو كو أمس بدعالي سيئو خوستا كو قرصدو ودد بدن باكو كتسومي هذو سلط واقو بنانك لا استاغو ونكا وركي سعداء سوساس ما ساس لراد الواقفة جهمية وجهمية لكن اسقرينيا مركا هنقول واقفة هنقول القرآن كمركا لغاها الليو ها استاجن هنا تردد شكله يسكو قلني واحد ترى هذا الإله مخلوق لما كله فوق لماذا تردد كو قليان وركاس وحا كتغيبه كيولي جهمي حقي رعصنا كما قال أتباع لجهمي بني وركا أو إن القرآن كأن لغاها لن مخلوق ما لغا قابصنه وددك جهمي رعصنا قار كم إذا سيدا كتغي أظن حلقون إيوه كلا سيدو قامرين قولوا الصدحة دي وحوي وانما اللي يدهدو اللفظية او وحي دهان قرآنك ما مخلوق مثل مخلوق ما مركا لغا هلايو با وحي ليهين
لفظي بالقرآن مخلوق لفظي قوحا لهذا وكدواقنته وأخرنته إذا إيا كدواقسته إذا القرآن كدواقي ومخلوق قولنا وحي كدواقنته القرآن كدواقي مخلوق معها لفظي بالقرآن مخلوق كلمة باحدنا وحي الإمام أحمد عليه رحمة الله وحي اللفظية جهمية أيضا جهمية الراعي لفظية محاضة هيدا قرنا واقفة قرنا لفظية محاضة لفظية وحوي كلمة اللي هذا لفظي كلمة اللي أما قراءتي أما تلاوتي بوحي تهي كلمة مصدر لما معنى احتمالي كرتا لما معنى احتمالي كرتا كتشي رجلي كروحوي inaad ka wado markaad leedahay lafdii yani dhawaaqaaga iyo carabkaaga iyo afkaaga iyo ficilka ay sameynayaan oo ku dhawaaqista ah falka laftiisa inaad ka hadlayso lafdii way soo gali kartaa bimaana talaffuz bay markaa noqonaysaa inaad ka wado waxa aad ku dhawaaqaysa laftiisa ee akhrinaysa laftiisana way soo gali kartaa labadaasi maadaama ay gali karaan oo labadaba ay meesha soo gali karaan labadoodu isku xugum ma yeelan karaan oo haday noqoto waxaad ku hadlayso markaad midna quraanka akhriyayso waxa aad akhrinayso waa hadalka Ilaahay soo saasma waxaad akhrinayso waa hadalka Ilaahay laakiin carabkan dhaqdhaqaaqaya bishibahan dhaqdhaqaaqaya sawdkan baxaya yani ficilkan yaa iska leh adiga iska leh kaasi ma makhluuq baa bise waa hadal Ilaahay مخلوق هذا إسكال مركا سوساسما وفعل كاجي وفل كاجي وحن سمينا ينا وحبناها جيوا سوما نواقم بحينا هذا إسكال لكن واحد كل أواقيسه يا إسكال وهذا الإله سبحانه وتعالى سوما مركا هذا تلاهو لفظي بالقرآن مخلوق وحميش سوى ذا جلي كرا وحهذا الكاسي لغا فهمي كرا إن أتكوّد القرآن كان كهل لي إن أخرين يوا مخلوق waxaa kaloo laga fahmi karaa aniga ficilkaygii iyo dhawaaqaygii iyo bishimahaygii carabkaygii ficilkoodii baa makhluuq ah labadaba waa laga wada fahmi karaa hadalku hadduu laba macno qaadan karana xugum lama wada siin karo oo mana dhihi karaysid lafdi bilqur'aani makhluuqna ma dhihi kartid lafdi bilqur'aani hayru makhluuqna ma dhihi kartid laanna haddaad tidhahda maalan lafdi bilqur'aani makhluuq haddaad tidhahdo معنى الصحنا ماشي وسوق كرا معنى خلدنا وسوق كرا معناها الصحسن يا شيء كرا معناها خلدنا يا شيء كرا إذا كل شيء معناه أنو كلا قاضي هذا كيف مخلوق كيف مخلوق هاي لو واحد من اللفظي لو معنى زوج الكرا سوا لو دي معناه زوج الكرا من نوع مخلوق ما سوا ما كاتر هذا اللفظي بالقرآن مخلوق معنى الصحنا ماشي وكوتشرا معنى خلدنا وسوق الكرا معناها الصحسن واكي معناها خلد كذا واكي هاي أنا صحسن حوي مكان والقرآن كوها الله آخرنا يوم أهلد كينيس وأفقي بشمه ومخلوق هذا سيدا كوده وصحسنه هذا كوده بالعكس صوت يصوب بحيا مخلوق أنا واخذنت waxaan akhrinayo ku dhawaaqaya makhluuq hada tirahdana waa khaldantahay marka sooma tayib hadan cagsi ka dhigno ka warramo oo ilaahdo lafdi bil qur'aani ghayr makhluuq lafdi bil qur'aani ghayr makhluuq markii hore waxay ahayd lafdi bil qur'aani makhluuq baa soma waan daba gadina waxaan idin lafdi bil qur'aani ghayr makhluuq baa hadana halkaas masaxsay hadana labadiiba oo soo gali kara laakiin kii markii hore saxda ahaana khalad buu noqon kii khalad ahaana markii hore sax buu wada noqonay soma oo wuxuu noqonayaa ghayr makhluuq hadda waxa sax ku noqonaya kaad akhrinayso سوا
وقرآنك غير مخلوق وحا خلق نقول يا هداد ولا تشيدو عرب كاغية فعل كاغية صوت كاسو بحي سوساس ما لما قوروا مركا هداد ترى هذا اللفظ بالقرآن المخلوق نوا خلدنتها هداد ترى هذا اللفظ بالقرآن غير مخلوق له وخلدنتها سوساس ما طيب ساس براد يبقى الإمام أحمد عليه رحمة الله وحوري من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي منك هذا القرآن كاللفظي لفظي القرآن كان كل لفظنا ياي ومخلوق روحي هذا وجهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لابد من الديدين صوت لابد من الديد محال له الديد يا وي ورك محال له الديد لماذا يا هاي هذا لو معنى قاعدة مركب مد لوجي ولا معدين اوكي هذا هو مرهبان هذا الكلي اوسن كلا عدين هذا سكتنا وحكى لنا كرينا باطل سكتي هذا ودا ديدنا حق الى ديده بعد اكرت سوما هذا النوع سو كلا لمنا سبي كرو لمنا انفين كرو وان لكلا قادو oo faahfaahin la geliyo oo aad tiraahdo mesela talaffuzka sawdka baxaya arabka ficilka bishimaha waxan ana iskale waa makhluuq waxa aan akhrinayna غير مخلوق ويانا وكلامك إله سهدا وكلا قاعدة مشكلة مالي لكن انت اسكت ضد هذا ترى هذا اللفظ بالقرآن مخلوق وخلنت هذا ترى هذا اللفظ بالقرآن غير مخلوق له وخلنت ساس برادي بقول الإمام أحمد عليه رحمة الله اللفظية الجهمية ما اللي بعمره قال اللفظية هذا وجهمي لماذا؟ لأن أما مبتدئ أما ما هو الجهمي إسقارين يوم أما بجهم إسقارين يا وواحد ذكرت إنه ماشى كقارين يوم لفظي بالقرآن مخلوق بمعنى كان أخرين يا القرآن كي ومخلوق إنه تاقرين يا لقيام أديك أنا كموتسين إنه كوضه يعني عرب كيسي وحيالها إنه كموتسين إسقارين يا بعد عكرس ساس برادر وإلا حرباب كاسودا هذا كم مرمي إذا سيدي إمام البخاري عليه رحمة الله السمعيين مسألة كلاقات وواحد ترى هذا تنين هو مخلوق هذا الكإله هنا غير مخلوق هذا سأوك لقد إشكال ملك لكن المدى الديدين إليه اللفظية الجهمية وهذا الكماركم سائس سجود الدوبين هذا الكماركم وكان لمد الدوبة مسألة الله بعد الديدين وحوي لفظي بالقرآن مخلوق هي غير مخلوق تونا وحل استعمال كريمة الفاظ مرحبا هوري له استعمال كريمة وحا في عن إلا آدو الفاظ الشرعي استعماله سمعت مر والبواحي اللي بدقليده كنشرتها الفاظ الشارع استعماله إلى تقابسته خاصة باب العقيدة عقائد التوحيد مرة لا يعلم وحا في عن إلا استعماشه الفاظ صورت حين لفظيا وحلقيها إنه كل خلطه صلا ومعنى وحويان وسحر استعمال كيسو كائد ساسي معنى مركا معناها سوكا ولا صدحني قلبه مركا وردي صلا قلبي تي القرآن كوا مخلوق وردي والجهمية يمعتزله اسكعبا وركوب قلبي وحي الردي اللباد او تري أنه مخلوق ويانا به مينو ومخلوق نبيه مينو مخلوق معها نبيه مينو وكقاب سنينا ووحل إلى قلباس الواقفة صلا أيضا وجهني إسقرينية قلنا اللباد قلنا هذا الكمال دهن إن كالعبين إنه قرية يري اللفظي بالقرآن مخلوق أيضا اللفظية اللي إلى أيضا وردي محا صهر مركا إن أترى هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود أمدام كأهل السنة والجماعة أساسه قرآنك حروف تيسة هي ألفاظ ديسو وكإله سبحانه وتعالى هذا الكيسو انت وحي كيقود بنا إن شاء الله تعالى نوانك اللي يدهدو أشاعرة مذهب الأشاعرة شاعرة شعرية ومذهب كالصومالي أي توحيد أهانو هيستيو مر والبا أبوات المركة لمرأيو إلا براروتشي ومضنته أن الصومالي إلا هذا ودادده ويكون فانا وكلية شافعي الأشعري قادري انت وزدور القادري الشافعي الأشعري مركة أشاعرة محي كقوان قرآنك مدى بأن السنة والجماعة موافق سيهن مثل موافق سنة في هذه المسألة جوابت وحوي
أشاعره في مثل هذه المسألة مسألة الكلام ومعتزله ساسو معنا حوغا وإسقريان لكن مركو قدام بيسير لحقيق شيو مذهب كودا إيا مذهب المعتزله واسكمت waxay yiraahdaan kutubta sida ku taala mesela jawharada iyo sharxiisa tuhfatu muridka iyo sida ku taala waxay leeyihiin quraanku waa cibaara an kalaam illah hadal ilaahi ma aha laakiin hadalki ilaahi baa laga soo cabiray cabir mutaqan bimaana inaad macna meesha yaala intaad fiiriso adiga aad ku cabirto lafdigaaga ku cabirto waxay qabaan kalaamka sifatul kalaam sideedaba sifo oo dhaati ah oo sida yada gacanta iyo wajiga iyo sifatu dhaat weeyaan waa kalaam nafsi ah kalaam soo socmayo ilaahay ka soo socmayo ma jiray qabaan kalaam marka la yiraahdo al kalaam nafsi baa la dhahaa kalaam nafsi mar haduu yahay in kalaamkii nafsiga ahaa baa la soo cabiray quraankani waa kalaamkii ilaahay oo la soo cabiray markii la yiraahdo yaa cabiray su'aasha halkaas ay marka ku fashilmayaan intii hore oo dhan way sii qarin karaan laakiin marka la yiraahdo yaa cabiray annaga waxaan u baahanahay xuruufta meeshan taaleen akhriyayna yaa iskale halkaas marka fashilmayaan oo qaarkood waxay oranayaan jibriil baa cabiray okay jibriil soo makhluuq ma marka ha xuruuftan haduu jibriil leeyahay soo makhluuq ma marka ha makhluuq waa ومسائش تقريبا أي أشاعره انت هرون وحضاء إلي ملدهان بإسكود ديان ودبينها ضلوة العلم والمبتدئين ما فهمي كران الكلام القرآن عبارة عن كلام الله عبارة عن كلام الله أن أدنو فهمي كران لكن مركا لسي حقيقيو وحي قبان إن القرآن كؤويه مخلوق وأوسم كلام إلهي أهي سيدا روحي يباهن إنه هلو بالنص يقول القرآن مخلوق وحكوا على تحفة المريد كأوليه بيجوري تحفة المريد كشرح جوهرة التوحيد أيوكوا على يقوى أشاعره له معها هذا الإلهي معها إيوى مخلوق لفظا يقوى السنة والبوع عبينه أشاعره مركا في مثل هذه المسألة رأي قوض والرأي معتزلة لكن وحوغا عبارة لطيفا وضدك انت كبرارو كريم أي معناها استعمالها ساسي معنى طيب وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا وقل واحد على سنجيو غير مخلوق مذا لأبورين وهي كلام مليكنا بقر كنجا هذا الكيس مذا لأبورين وهي الله بقر كنوع هذا الكيس مذا لأبورين معه ساسو معنا سيا وح أبوره هذا الكيله بوح أبوره لكن سيا لما أبوره ساس ما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صمع إلهي سبحانه وتعالى وحكو أبوراه كلمة كن أهو كن سو كلمة ما سو هذا الكلمة ما كلمة كن بمخلوق أبورك كلمة حبي يدي اللفتة دي مخلوق تاي كوربه هذا إذا اللفتة دي مخلوق نقطة مخلوقات كالمخلوق بأبو ريوه صوصاص كان بالمس إلا كنت إلى هذا الكيساء هيد المخلوقات كان لقو أبو ري هذا يدي مخلوق نقطة وحي أي أبو رتي يدي بس مخلوق سوى نقول مايا ساسي معنا يعني مركا هذا الكإله سبحانه وتعالى وصفة إلهي وحكو أبو رو صفة دي سيوه وح أبو رتا أيضا وحكو أبو رو الله سبحانه وتعالى لكن أيضا لفتة دي مخلوق ما نقرت صورة قلنا ساس دراد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحكم إذا دعوين كيسي الله يعني يحوي أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ وحن مغنقلي بكلمات الله إلهي كلموين كيسا المغنقلي هذا مخلوق تهميه مغنقلي لأنه محمد صلى الله عليه وسلم يا مخلوق ميه مغنقلي ما يا وحي مغنقلي لأنه وصفة إلهي واحد أقول معه ساس معه مركا إلهي كلام كيسو سبحانه وتعالى وصفه إساقو أوليه من صفاته بين كمتها ساس برادة بالغو داران كرا ولا مغان قلي كرا وحبان لقوه يديسان كرا انت مخلوق لقوه مصمين كرا مخلوق لقوه داران كرا لما مغان قلي كرا إلهي لقوه منبري كرا سوى جد
وصفة إله سبحانه وتعالى إن صفتها يبقى مركز يكدوسيس أنت صورا وقل وحتى هذا غير مخلوق مدى لا أبوريه كلام مليكنا بقر كلا هذا الكيس مدى لا أبوريه الفاظ يا معاني اللوض وإلهي كسوفلين خلافا للأشاعرة والماتريدية وأشاعرين ماتريدية محيل هذين معاني ذا إلهي حقي سكتمت ولقى فهمي هذا الكيسي نفسي جاها معاني ذا حقي سكتمت لكن ألفاظ الماشة الله ألفاظ إلهي معها بينه هذا الإلهي معه ساز راد الروحي قبان هذا الكإلهي حرف إيه الصوت معه صوت لما قليه إيه حروف معه ما حيكون دي المتغنى وحيد هذين هذين إلهي هذا الحروف له والصوت لما قليه وكوها الله هدي إنه مدعنه وإنه اتصدا سجنه وحكت على نيسا إنه ماشي يمادو عرب إلهي أسجنه عرب إيه أف إيه بالشمو إيه دمحنق إيه عنق إلا الصوت صبحة إيه حرف صبحة انت سوء بها يهبله هذان إذا مركا حروف إيه الصوت لما قليه الله كسوف لي بمعنى waxa ka doonaysay inuu af iyo bishimo iyo dhamxanag iyo carab iyo usugno maadaama ay arintaasi ka laazimayso marka waa inaan niraahno ilaahay subhanahu wa ta'ala xuruuf malaha sawd lama qalana malaha waxa seegtay oo ay garan waayeen xaraf sawd kasto la maqlo iyo xuruuf kasta laazim ma aha inay inta soo saarto soo bishin iyo carab iyo dhamxanag iyadoo aynan jirin baa hadana sawd xuruuf la heli kara soo intaan alla la gaadhin ma makhluuqaadka uu imo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi dhagaxda salaam jiray soo assalamu alayka ya rasuulallah ma ka intuu joogay nabi sallallahu alayhi wasallam dhagaxda salaam jiray aaway carabki aaway bishimihi ma jiro laazim ma aha ilaahi subhanahu wa ta'ala shay kasta waa awooda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi mathalan markii uu madiina yimid inta minbarka loo sameeyay geed baa nabi sallallahu alayhi wasallam uu ku tirsan jiray macnaha ku khudbayn jiray geedkii markuu ka wareego minbarka sameystay waa kii geed ku sawdeeyay ilaa nabi gacanta saaray sallallahu alayhi wasallam marka macquul ma yani waxa weeyaan sawdkani ilaahi subhanahu wa ta'ala meeshu doono ka soo saari kara hadiiba makhluuq ay ka sawrowday isagoon af iyo bishmiya carab lahayn inuu hadlay oo sawd iyo xuruuf ka soo baxeen allah khaliqa maxamed sallallahu mushkilada dana haysata waxa weeye markii ay shay maqlaan shayga qiyaaska marka uu waxay la aadayaan kii makhluuq ay ku yaqaaneen marka ugu horeysa waxa loo baahay haddaad sifo ilaahay maqasho waa inaad ogaato waxa laga hadlayo iyo waxa taqaan inuu kala gedisan yahay sifadana sideedaba waxay qaabkay qaadanayso waa qaabka cidda lagu tilmaamayo uu yaalo ayu sifa min sifat soma hada mesela hada tiraahdo dheg soo dheg ma laakiin marka tiraahdo dhegta maroodiga iyo marka tiraahdo dhegta jiirka dhegti ma kala baxday mise ma kala bixin ya waa kala baxday marka tiraahdo lug soma lug waa sifo lugtee soma lug waa isku jirtaa laakiin marka tiraahdo lugta maroodiga iyo marka tiraahdo lugta bisada ma kala baxday mise ma kala bixin waa kala baxday adiga markaad ka hadlayso waxaad ka hadlayso waa khaaliq aan la garanaynin intuu inoo sheego waxaan laga yaqaan markuu yiraahdo mesela waxaan leeyahay waji baan leeyahay oo quraanka ku sheego in intii yareeyay maskaxdaada ku jirtay aad wajigiisa la aadad wajigii khalqiga marka uu kugu soo dhaco maskaxdaada halka u foofto waa khalaq waxaad ogaadaa waxa laga hadlayo ma aha waxa taqaanay makhluuqaadkiiba iyagoo xubnihii isku magaca oo hadana kala duwan yihiin soo saasma oo isku mid ahayn wajiga maroodiga wajiga bini aadamka wajiga xayawaanaadka wajiga cayayaanka waana wada waji soo ayagoo makhluuqay hadana kala duwan yihiin khaliqi kownkan abuurtay makhluuqiisa ka gadisna ka waran marka adiga tilmaamihiisa maxaad ula soo aadaysaa tilmaamaha makhluuq ula soo aadaysaa soo ma khaldani saas macna sidaas daraadeed haddaad aragto nin sifa ilaahay diidan intuusan sifada diidin waxaa ku dhalatay yani shubha ah ilaahay khalqigiisa isaga ekaaday taasaa keentay marka inuu yidhaahdo maya sifadaa lama sugi karayo ilaahay bay fara u sugeen ilaahay bay gacan ku sheegeen ilaahay bay lug ku sheegeen warmaase wax idinka yihiin qur-aanka iyo sunnada sheegay
inay diidaan macnaha dadka marka waxa ku soo dhacaya inay diidaan keenaya lianna makhluuqa tilmaamihiisii iyo tilmaamihii rabbi baa isaga darmanay labadaasi markay isaga darmadaan buu wuxuu bilaabayaa marka inuu yidhaahdo ilaahay waxaan uma qalmeeha laga daayo makhluuq waa lagu yaqaanaa wartaan ka hadlayno iyo taad u kacday kaafiya kala dheeriyo adigu makhluuq baad u fooftay annagana waxaan ka hadlaynaa khaaliqul kown baan ka hadlaynaa iyo tilmaamihiisa macna saas weeyaan marka yani waxa weeyaan waqul ghayru makhluuqin kalaamu malikina midaan la abuurin weeye boqorkanaga allahnaga boqorka noo ah kalaamkiisu midaan la abuurin weeye alfaada iyo xuruufta labada midna lama abuurin jibriilna male nabi maxamedna male salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo seebaad dhahaysaan aayadda qur-aanka ilahi uu leeyahy subxaana wa tacaala inahu laqawlu rasuulin kariim laba meelood bay qur-aanka kusoo arortay inahu laqawlu rasuulin kariimin dii quwatin cinda di lcarshi makiin yaa laga wadaa marka jibriil baa laga wadaa inahu laqawlu rasuulin kariimin wamaa huwa biqawli shaacirin qaliila ma tu'minuun markaana yaa laga wadaa nabi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh ayib seebaa marna nebi maxamed loogu tiiriyey qur-aanka marna jibriil loogu tiiriyey oo waa qowlkiisi loo yidhi macnaha waxaa laga wadaa labadoodaba waxaa loogu tiirinayaa bimacnaa wuu soo marayoo way guteenoo markay gaadhsiinayeen dadka way ku hadleen jibriilna wuu soo qaaday markuu nebi maxamed u keenayo soo muusan ku hadlin la qawlu rasuulin waaye waa hadalkiisi wuu ku hadlay nebi maxamedna salawatu rabbi wasalam aleyh markuu ummadda gaadhsiinayo soo muusan ku hadlin inahu la qawlu rasuulin kariimin waay labadoodaba waxaa loogu nisbaynayaa marka gaadhsiintii ay gudbinayeen wa ilaa labadooda midna inuusan hadalkan lahayn waxaad ku garanaysaa ma dhici karto inuu qur-aanka jibriilna yeesho nebi maxamedna yeesho ma dhici karto soo saas ma haddii midkood uu leeyahay kaa un baa lagu dayn lahay ruux hadal laba ruux kama dhaxayn karo soo ma hadal laba kama dhaxayn karayo labadoodaba marka waxaa loo leeyahay waa hadalkiisi bimacnaa gudbinta ay gaadhsiinayeen khalqiga laakiin hadalkan asal ahaantiisa ilahay baa iskale subxana watacala saas daraaddeed haddaad maalan hadal dhacay nin hadalkii noo sheegayso hadalkiisa noo sheegayso hebel wuxuu yidhi baa dhihi sooma hebel wuxuu yidhi sidaa iyo sidaasuu yidhi sidaas iyo sidaasuu yidhi hadalkiisina waad noo soo tabinaysaa adigiina waad ku hadlaysaa soo saas ma saas weya sidaas iyo sidaasuu yidhi waa inta jibriil iyo nebi maxamed ay ku leeyihiin salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin hadalka ay soo tabinayaane dadka ay u sheegayaan yuu yahay waa hadalkii alla subxaana wa tacala dowrkooda intaa way macna ayib waqul hayru makhluuqin kalaamu malikina bidalika kaas oo inuu hadalkii alle yahay boqorkanaga hadalkiisii inuu qur-aanku yahay bidalika kaas ayaa daana ay diin ka dhigteen oo ictiqaadiyeen alatqiyaau raggii iyo dadkii ilaahay ka baqi jiray subxana wa tacaala saxaabadii taabiciintii akhyaartii a'imadii waaweynaa sidaasay ictiqaadiyeen oo wa afsaxuu weliba ay caddeeyeen way caddeeyeen weliba maynan ictiqaadin keliya maynan ku gaabsanine way caddeeyeen kutubtooday ku qoreen way ku dagaalameen ciddii khilaafsan bay xukumeen oo bidcanimo ku xukumeen war cad oo ay caddeeyeen way macna walaa taku ha ahaanin fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa qaa'ilan mid yidhaahda bilwaqfi istaagid anigu waa ka gaabsanayaa waan ka istaagayaa qur-aanka dhexdiisa hadhihi markii laga hadlayo qur-aanku ma makhluuq mise makhluuq ma aha mid ka istaagaha noqoninoo waan ka gaabsanayaa lagama ogola caddee ka gaabsanaya waxaad tidhahdaa qur-aanku waa hadalka ilahi makhluuqna ma ah halkaa marbu macnaa walaa taku ha ahaanin fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa qaa'ilan mid yidhaahda bilwaqfi istaagid shaki baa dee markaa kugu jire shaki uusan ku geli macna makhluuq ma aha waa inaad tidhaahdo oo bidcadii jahmiyada markaasi aad ka leexata way kamaa sida qaala uu yidhi ay yidhaahdeen atbaacun kuwa wax raacsan oo lijahmin jahmin u sugnaaday jahmigu waa ninkaan sheegayni jahmu safwaan calayhi min allahi maa yastaxiq caqiidadaa meel xun buu ka keenay saan sheegnayba nin wareersan buu ahaa jahmigaas niman la yidhaahdo sudaayiya inay ahayn baan u malinay mismaniya ahayn niman malaaxido ilaahay jiritaankiisa aan ogolayn buu la dooday oo gaalo ah nimankiibaa doodii kaga reeyey 40 beri ayuu shakisnaayo ilaahay jiritaankiisa ka shakisnaa
أفرتن كابري صلاة متكنين بالله نين ورسانه مركا وحو أهبض والبتشيرة جهمي قاس جهم الصفوان بالله هذا بدعوين كأنت بدل الإسلام كنحدث سوق على بدل كون يسجع كياني قرآن كوا مخلوق يسجع كياني لكن هو رأي بالعبد معناه الجعد وكياني شلنا يا النار تمتشريانا ولمان دونا يسجع كياني يسجع وحو كياني وحل إله مثلا إن إلهي سبحانه وتعالى صفات كي سلق إنكرو يتلماميس والله إله ربي سبحانه وتعالى عرشه كما كريه ملك السوتشوغا عقيدة أركيسان الصومالي وقاركون هيستين ميل والبوت شوغا أو عقيدة جهمي كدن بي جهمي باكين تاريخ أمورسي جعد جهمي باكين علمي سيركون والله دقالنا وحياله كان وحا كمدا إنه إنكرو إلهي أركتدي سآخراء المؤمنين تؤرك دونا بلاياد أو من انتو ضبضا منك كان يبوه كدبنا والله يقاطي وقل يهن كلا قد سنة كدن بيبا كدن حلقة أفكارتي سيفا في معرفة طيب كما قال سيدي أتباع القوى الرعسان سيدها لجهم الرعسان وأسجحوا أي أؤيشين أسجحوا أي أؤيشين وأدبعين نفتضوا أي أدبع علي سلاس معنى وحوة يقاتلون ولا تقولها أرنن القرآن قرآن كي خلق مثل أبو ريوي قراءته بمعنى قراءته ولا تقولها أرنن القرآن قرآن كي مخلوق أي خلق مخلوق مثل أبو ريوي قراءته قراءة سمير أبو ريوي أخرين تيدا عن أخرين يوم قراءة معناه وحكوة هذه قراءتي بالقرآن مخلوق ما هي لم ينتهي قراءتي بالقرآن مخلوق ما هي لم ينتهي لفظي أو كلمة صح هذه تلاوتي بالقرآن مخلوق هذه قراءتي بالقرآن مخلوق هذه لفظي بالقرآن مخلوق هذه كل واسكم معناه ومعنى لأنه هو مسادر لو معنى سوق الكلام ساسك معنى ويقول مركها أورنن يعني القرآن قرآن كي خلق مثل أبو روي قراءته أي قراءته أخرنتي سأن أخرنا ياي مثل أبو روي هذهن لأن هذا كواحد سوق الكرة إن أتكوضه كي أد أخرنا يسير وهذا الكي إلهي إن أتكوضه أديك فعل كاغي الصوت كاغا يعني واحد سمينيس لوضع معناه ما دام مش سوق الكران مخلوق ويانا هديهم غير مخلوق ويانا هديهم لوضع معناه فاسد أقول الكرام معنا طيب محايا لي فإن كلام الله إلهي كلام كيس هذا الكإلهي يوضح والله عديا باللفظ لفظ قال له عديا لفظ هو حروفته يقول واقصته ذوه ما كان حكوضا معناها ماشي يالا إيا اللفظ كان عدينا يابا إلهي بأسكاله لفظ قوحو عدينا معنيه بو عدينا صبا مركان مثلا تلاحظوا الحمد لله مركان تلاحظوا ماشي وحا يالا حروف إيا حروف تاسي معنى أي وطان صبا طيب الحمد ذو وألف إيا اللام إيا حاء إيا ميم إيا دالوة صبا معنى هذا الوحو هو مهد iyo amaanta kelimada macnaheedu u yahay iyo xuruufta ka turjumayso oo alifka iyo laamta iyo xaad iyo miimka iyo daalka labaduba ilaahay bay ka yimaadeen subhanahu wa ta'ala labaduba ilaahay baa leh ma aha inay alhamdu mahad oo macnaha mahadihi ilaahay ka yimid xuruufta lagu cabirayna inuu jibriil leeyahay ma aha khilaafan lil ashaa'ira shaa'ira warkooda ka baxa saas macna laana waxay marka dambe tagi حروفتني ومخلوق بيتي صوما ورأيك معتزلة جهمية عديسنا يونا هذا هو بيتي مركا واحد كويري فإن كلام الله إلهي كلام كيس يوضح والعديا محل عديا باللفظ بالعديا معنيه لفظك عديني لفظك يا معنيه اسوتنا وكلامك إلهي سبحانه وتعالى مخلوقنا معها انت درسك هو رأينا كتوجين إن شاء الله تعالى هذا بالله توفيق هو رأينا كتوجين إن شاء الله تعالى هذا بالله توفيق هو رأينا كتوجين إن شاء الله تعالى هذا بالله توفيق هو رأينا كتوجين إن شاء الله تعالى هذا بالله توفيق هو رأينا كتوجين إن شاء الله تعالى هذا بالله توفيق هو رأينا كتوجين إن شاء الله تعالى هذا بالله توفيق هو رأينا كتوجين إن شاء الله تعالى هذا بالله توفيق هو رأينا كتوجين إن شاء الله تعالى هذا بالله توفيق